deeqsiyo ummadda muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ee gaar ahaan Puntland oo runtii abaar badan ee ka jirto miyigi iyo meel kasta miyi iyo magaalaba ilaahay waxaan ka codsanaynaa inuu ducadeena inoo ajiibo sidoo kale culimadu waxay xuseen dhalinyarada habeenkii arbushka iyo shidada ku wada magaalada oo dadka moobilada ka furanaya oo xaafadaha ladan ka soo baxaya waxa laga rabaa dadweynaha Boosaaso inay ka feejignaadaan inay hubiyaan ilmahoodu meesha uu ka keenayo moobilka way ognahay maanta qof moobil dhowr boqol iibsan kara oo ilmo yara ma jiro ama saaxiibkii siin kara waxa la yaaba oo inuu warhaynaa in ilmo moobil soo qaatay ama la soo dacweeyay intii la baari lahaa waalidkii inuu ku garab istaago dhaho ilmahaygu masaajidku ku jiray ilmahaagu masaajidka isagoo ku jira dembi waa geli karaa waa inaad baartid waa inaad hubisid deetana markaas aad jawaabta siisid qofkii kuu soo dacwooday ma aha ilmahaagu qof aan dembi geli karin taas waa lagu ku boorinayaa waalidiinta inay qayb ka noqdaan jaamacadaha iyo iskooladu inay wacyigelinta qayb ka noqdaan waa ku boorinayaa runtii waxa layna ka rabaa inaanu wax saxno si ilaahay ducadeena u ajiibo